waxaan halkan ka salaamayaa midowga bahweynta carabta jamaame salaan kadib $9,400 ayaan soo bixinay akoonkii aan ku qornayn aniga iyo maxamed axmed xasan waan keenay guddiga ayaan u keenay lacagtii oo uu ka mid yahay faarax maxamed cabdisankoor ismaan galley lacagtii waad aragteen faaraxa ka sheekeeyey waadna ku mahadsantihiin insha allah tacaala wixii dhimanna soo dhammaystira insha allah tacaala kheyr ayaan idin rajaynaya booskii laga soo qaadayna ilaahay ha idiin soo buuxiyo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaaji gooy cabdiraxmaan ukuri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوينك عربت جمالي واني سلامي السلام كبعده عباد الشيخ والعكس لو المفارح وربحين كديبي يعني قدي يعني كمتنا ماشي كسوب بحد العكس إلهي بتقيقة لو يسالو سيدا في عن أو نكسنا الجامعة كويسي وأنا ما هتسنا سيدا أوكلا وحد يرجينا كدوكي أو في عن هنا سيدا أو دتك كباتنا له إن واحد كبتي كرباني رجينا الله نية حفظ من الدنيا يا جوكي لا خير على نيش بسم الله أخويا بسم الله على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa walaalaha guud ahaan midda xigta waxaan idin sheegayaa sideedaba waxa fiican ilaahay hadduu wax ku siiyo inaad ku xamdiso ku shukriso oo islaamkana dadka masaakiintana aad ugu gargaarto laakiin gabdhaha yaryar fahmaysaa oo 14 jirka iyo kuwa aan qaan gaarin in maalin kasta mid guriga aad ku soo gashato haddana markii kalena aad mid deyso wax suurgalay ma aha arrintaas waxaa la yimid walaalkeenna xaaji gooy oo xadgudbay inaan qabashadiisa leenahayna hadda cid isma weydiinaysa hadda waxaana la joogaa ree ukure nin ka mid oo Usmaan Axmed ukure ah marka waxaad yeelaysaan walaalayaal waxa waa qofka hadduu waasho walaalkiisa u miir qabo ninkan wuxuu maraa gabadhii 8 oo guurkeeda hadda ay taagan tahay oo ay ka mid tahay dadka waxa ka mid ah gabadhii adeerkiisa dhalay Khaliif Axmed ukure waxa ka mid ah gabadhii uu dhalay Shaalanuno waxa ka mid ah gabadhii uu dhalay Axmed Yuusuf oo reer Galweel waxa ka mid ah gabadhii uu dhalay Abdullahi Maxamed Sheekh waxa ka mid ah ina shaqaale waxa ka mid ah hadda waxaan tiri koobi kara ma aha farigii ay ka bateen fahmaysaa marka waxa waay sidii shamsooy u dhimatay Allah u naxariistee bacdaha ninkii waa qaban la'nahay marka waxa loo baahan yahay dadka hadda inay iskaashtaan u dambaysa dalkeena ti u dambaysa gabadh tunne oo rajama hooyada diimaal ay tahay oo hadda alla muslikiisa oo masaakiin oo 13 jir bilxagee laga maraya xajga ka maraya marka fadlan insha Allah haduu ilaahay yiraahdo waxaan leenahay ninka walaalkeen waalo u baahan yahay wax qabad u baahan yahay hadii kale waxaan faraha ka saaray xuquuqda kooxda xuquuqda insaanka u dooda gabdhaha yaryar oo guurka aan gaarno guurka qasabka ah waxooga la awaalay toolba kiisas ku dhufara kul aan dhameen hore ka soo dhiibay waxay ku aqriyaa garan laana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi